halkan marka dhibaatadan haysata waxay tahay xor ma ahaan karno haddii aanan helin dhaqaale nagu filan. dhaqaale nagu filanna ma heli karno haddii aanan kusoo noqon hay-adaha dhaqaalaha adduunka. hay-adaha dhaqaalaha adduunkana kuma soo noqon karno haddii aanan xal u helin dhowr arrimood: inaan la dagaalano musuqmaasuqa, inaan dhisno wasaaraddeena maaliyadda, iyo inaan keenno xal lagu xalliyo deyntana lagu leeyahay. intuba waxay u baahan yihiin inay iskaashato ganacsatada, shacabka iyo dowladda si markaa aan howlahaas u qabanno. sanadkii lasoo dhaafay waa u mahad celinayaa bangiga iyo wasaaradda waxaa la soo gaarsiiyey meel wanaagsan oo hay-adda lacagta adduunka ay leedahay. soomaaliya horumar ayay samaysay, laakiin wax badan ayaa adeegaya. laakiin ay leedahay bisha May marka aad gaartaan 2018 waxaan bilaabi karnaa inaan idinla galno wada hadal ah sidii deynta laydinkaga dhaafi lahay, laakiin haddii aad soo buuxisaan shuruudaha 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4. waxaan rajeynayaa inay wasaaraddu idinkala hadasho shuruudahaas maanta. iyaguma fulin karaan haddii dadka halka jooga marka aanay la qaban. arrinka labaad waxa weeye waxaan laga rabaa in xoolaha annagu hadda aan haysano ganacsatada lacagta yar oon ka soo qaadno la bixiyo. adduunyada waxay naga rabtaa inaan caddayno inay ku baxdo si wanaagsan. shuruudahay ka mid ah in la kordhiyo marka dakhligana soo gelaya, in dakhligaasna soo galay lagu bixiyo meelihii loogu talagalay oo la caddayn karo. inaan caddayn karno inaan musuqmaasuqa la dagaalanay, inaan lagu takrifarin xoolaha dowladda, in qola awood leh aanay iska qoran warqado iyagu ay qortaan oo aanay ku takrifari karin dhaqaalaha. intaas iyo in ka badan oo wasiirka iyo wasaaradda idiin sheegtay haddii aan wax laga qaban kuma soo noqon karno hay-adaha dhaqaalaha adduunka. labo, waxaan nahay dalka dunida ugu fakrisan. suuqa bakaaraha ama meel walba markaad tagto waxaan wax ku kala gadanaa doolar. qof walba Soomaaliyeed oo soo gadanaya wax waa inuu doolar ku soo gataa 90% ama 80%, oo waxba lagaaga soo celinayo sarf line. iyadoo dadkeena intooda badan maalintii aanay heli karin hal doolar. xaggee iska qabanaysaa marka? sidaas daraaddeed waa inaan helnaa dhaqaalagu aan maamulno, lasoo habeeyaashii Soomaaliya, laakiin aan loo soo habeyn in qola intay tagto ay lacag soo samayso. oo bangiga adduunka iyo IMF-tu iyo international community-gu iyagoo markhaati ka ah ay yidhaahdaan soo mara shuruudahaas 1, 2, 3 iyo 4 markaad martaan annaga idinkala shaqaynaya. oo aanay ahayn lacag inta bangiga la keeno lasoo qaadan karo. oo haddii la sameeyo dowladda Soomaaliya shilinka ay bixinayso iyadoo ay haysato tii ay ku bedelanaya, si dhaqaalaha waddanka aan loogu ciyaarin. qof Soomaaliya oo joogtana lacag ay haysato jeebkeeda laga hado.